bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhowaada sheekadii taxanaha noo ahayd ee labadii xishoodku kala geeyey sheekadan waxaa qoray limaan axmed ciise abwaanka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdinaasir axmed xasan cabdinaasir xiirey amase fantastic wejigii labaad qaybtiisa koowaad ee sheekada waxa ay noo joogtay simran iyada oo aan hubsan meesha ay joogto iyo xaaladda ay ku sugan tahay ayay waxay la murooqootay farxad qosol iyo dhoolla caddayn oo waxa ay kaga dhagtay alla samiirkaygii ahaa waad i sugaysay maaho waan soo daahay miya dartayda armaad u silicday dartayda armaad uuntago go'day ogow aanba waan kuu boholyoobay iyadu waxay u haysataa in weli reerkii samir ay la joogto kolkaas ayaa geelaydii ogaadeen in ay tahay gaba reer magaal oo soo luntay ragga geelayda ah ee simran helay waa 3 waxa u weyn xuseen dhegey waa nin caana kana tilmaaman gobolka uu degan yahay waxaa lagu xantaa in gabdho badan oo reer miyi ah horey u soo kofsaday haatanse waxaa la joogtaa simran oo habow ah kala dooro bad iyo webi mid inaad ku dhacdo kala dooro libaax iyo dawaco mid inuu kaa soo horbaxo kala dooro qorrax iyo qabow aan gabaad lahayn waxaa taasi uga jeedaa simran waxay ka soo carartay baabuur ari saaran yahay oo cariiri ah haatanse waxay gacanta ugu jirtaa xuseen dhegey oo dhowr gabdhood kufsigooda lagu tuhunsan yahay haatanna ku soo dhowaada wejigii labaad qaybtiisii labaad ee sheekada labadii xishoodku kala geeyey wiilashii geelayda ahaa waxay go'aansadeen in ay gabadha maalmahayaan si ay jeenan u siiyaan ceelka iyo tuuladana ay ka baafiyaan sidaas ayay simran 3 habeen oo kale ula hoyatay wiilal geelay ah oo aysan garanayn balse naxariis soo dhoweyn dhaqan fiican iyo sooriyeen ka heshay kadib markii simran 3 habeen caano geel hilib sagaaro iyo jeenan kale lagu waday waxaa loo soo kaxeeyey magaalada weliba markaasi baabuur laguma soo aaminine waxaa soo kaxeeyey wiilashii geelayda ahaa mid ka mid ah waana xuseen dhegey oo kufsi badan lagu eedeeyey haddaba maxaad ka filanaysaa asagoo gabar lagu soo daray magaaladana geel la yidhi dad iyo dugaag kala darajaroon balse labadaba wax ka filo wuxuu yidhi waxay tidhi waxay yidhaahdeen waxaa la sheegay ha ku xugminin ruux aadan xogtiis hayn simran waxay goor barqa ah cagaha soo dhigtay magaaladii ay garanaysay kana tagtay iyadoo samiir raadinaysa waxaa gaariga la saaran xuseen dhegey oo 3 maalin jeena siinayay waraabahana ka difaacayay kadibna magaalada u soo waday si aysan mar kale u lumin dadkoo dhan lagama wada helo asxaan nuucan oo kale ah alla farxad badana uurkana ka guban ogaa maxaad u malaynaysaa hooyadii gabadheeda 5 beri la'ayd oo indhaheedu qabteen maxaad u malaynaysaa aabbihii miyi iyo magaalo cagta soo mariyey baadi goobka gabadhiisa oo arkaya iyadoo gaariga ka soo degaysa maxaad u malaynaysaa deris iyo qaraabo oo dhagahooda ku soo dhacayeen simran waa la helay farxaddu weliba nusqaanteeda lehe waxaa iina uurka ka gubanaysaa simran oo jacaylkeedii ku soo guuldaraysatay oday maxamed simran aabbaheed markii gabadhu gaariga ka soo degtay gurigana soo gashay dharbaxyo farxadeed ayuu daankeeda ka yeeriyey hooye saynab ayaa iyana ku bururtay oo qanqaniintay simran waxaasi oo dhan way daraysan tahay inaysan nacayb ahayn ee ay tahay jacayl loo qabo sidaa daraaddeed iyana dhankeeda ayay baroor afka labadiisa yeerisay dhowr daqiiqo oo dharbaaxyo balow iyo qaniyo lagu jiray kadib xaalku si caadiya ayuu ku soo noqday guriga gudaha loo gal xuseen dhegey oo gabadha waday la fariisi biyo qabow iyo shaax wixii la heli karay la soo qabay intaasi kadib oday maxamed warbaahinta iyo booliska ayuu ku wargeliyey inuu gabadhiisa helay iyadoo nabad qabta
ayna ku mahadsan yihiin juhdigii ay ku bixiyeen raadinta gabadhiisa. maalintii oo dhan simran cidna ma dhihin mana weydiin halkay ay aaday iyo waxa ay ku maqneed. xuseen dhegay qudhiisa lama waraysan ee qado intii la siiyey ayaa qolka martida la geeyey siduu u nasto. galabtii markii la gaaray qof walbana nastay ayaa hooyo saynab gabadheeda simran qolka la gashay si ay u waraysato. oday maxamedna waxa uu u sheekeeyey xuseen dhegey, waxna ka weydiiyey cidda uu yahay, halka asaga iyo gabadha iska heleen iyo waxa ka dhexeeya asaga iyo gabadha. xuseen dhegey oday maxamed waxa uu sheegay in gabadhiisa meel uu ka helay, habowna ay ahayd, dhowr berina uu hayey, kadibna magaalada u soo waday si aysan u lumin mar kale. mid kale isna uu yahay ina hebel ka sii yahay ree hebel dega gobolka hebel ku magac dheer xuseen dhegey. halkaas ayaa oday maxamed xuseen dhegey ugu mahad celiyey una sheegay inuu u abaargudi doono inta uu nool yahay haddii rabbi idmo. dhanka kale hooye saynab iyo gabadheeda simran way soo kala sheeko bogteen, wax walbana sida ay u dhaceen ayay hooyadeeda ugu sheegtay. saynabna odageeda maxamed ayay la wadaagtay waxay gabadhu u sheegtay ee ahaa inay wiil jeclaatay, intay ka xishoonaysana gabarh kale uu guursaday, dartiisana ay miyi u aaday, balse ku soo hingowday. laguma qaylin, war xunna lama dhihin, niyadda ayaa loo dhisay. iska ilow baa la yidhi, nasiibkaaga waad helaysaa la yidhi, dumarkaa u sarraysaa la yidhi, qurux baa kuu dheer baa la yidhi, dadnimo iyo xishood baa kuu dheer baa la yidhi, dadkaaga dhinac ka raac baa la yidhi. hamiinkii nabad ayaa lagu hoyday. waagu markuu baryey oday maxamed xuseen dhegey waxa uu siiyey lacag uu samanka kaga soo baxo, haddana raashin iyo dhar ku sii gato, baabuuraacna ka dhigto. sidaas ayaa xuseen dhegey mahad celin, lacag iyo sugotin lasgu daray. balse waxaa mashkulad iyo naxdin timid saacada kadib markii xuseen dhegey tegey ayaa waxaa oday maxamed soo wacay oday walaalkiis ah oo degnaa isla gobolka xuseen dhegey. iswaraysi kadib waxa uu sheegay inuu gabadhii helay, nin la yidhaahdo xuseen dhegeyna uu keenay. xuseen dhegey xuseen dhegey ina hebelkaa hebel miya? haa ayuu yidhi oday maxamed. odaygii ayaa yidhi gabadhi kuma noolaaye gabadha iska eeg. oday maxamed warkii ii jilci ayuu yidhi, una sheeg xuseen dhegey inuu yahay nin gobolka caanka ah, gabdho badanna kufsigooda lagu tuhunsan yahay. oday maxamed madaxa ayuu gacmaha saartay, xaaskiisa saynab ayuu u orday, waxa uu maqlana u sheeg, kuna wargeli gabadha inay baarto. hooye saynab sidii ayay samaysay oo gabadha ayay qolka la gashay. may ayay tidhi, xaashaa kulilah. intaasi kuma qancin ee waxay guda gashay in ay fiiriso inay gabarnimadeeda joogto iyo inay weysay. allama hadiis way nabad qabtaa, waa sidii gabarh inan ah lagu yaqaanay. markaas ayay neef ka soo kuday saynab iyo oday maxamedba. oday maxamed mar kale ayuu walaalkiisa wacay, waxa uuna u sheegay in gabadhiisa ay nabad qabto, waxna la yeelin, xuseen dhegeyna nin wanaagsan uu yahay. waxa la sheegayana ay been tahay, loona baahan yahay in wax la hubsado. haddaba xuseen dhegey waxa lagu eedaynayo waa been. weligiisna gabar mukufsan ee rag ay isku deegaan yihiin oo xifaalad dumar ka dhaxayso ayaa dabinkan u maleegi jiray. raggaas iyo xuseen dhegey waxaa lagu xifaaltami jiray dhowr gabdhood oo deegaanka la wada degan yahay ku tilmaaman dhan qurux, dhan aftahannimo iyo dhan maskax. xuseen dhegey oo aftahannimo iyo soo jiidashada dumarka kaga fiicnaa ragga kale ayaa mar walba goobta haasaawaha kaga guulaysan jiray dhallinyaro dhowr ah oo xifaaltankaas ka dhexeeyey. dhallinyaradii ayaa marka ay u taag waayeen xuseen dhegey gabar walibana uu ka dulqaadayo ayay ku fakareen inay ceebeeyaan gabdhaha iyo bulshada inteeda kalena ku diraan. haddaba dhallinyaradii waxay gudagaleen inay xuseen dhegey wejiga ka fiiqaan, waxa ayna ugaarsadeen gabdhaha aan garanayn xuseen dhegey. labo iyo saddex ayay isku raaci jireen dhallinyaradaas. waxay raadsan jireen gabar meel cidlo ah ari la joogta,
marka ay u soo dhow yihiinna wejiga iyo madaxa ayay mara ku duuban jireen marka ay gabadha kufsadaanna ayuu mid ka mida oran jiray xuseen dhegayowna soo bixi markaas ayaa wiilka xuseen dhegay lagu yeeray gabadha ku yidhaahdaa haddii dadka aad ku dhahdo xuseen dhegay ayaa ay kufsaday waan ku birayn doonaa gabar waliba markii la weydiiyo maxaa kugu dhacay waxay reerkeeda u sheegtaa xuseen dhegay iyo rag uu wato inay kufsadeen sidaasi ayaa magaxumo u gashay gobolka oo dhan reer miyiguna badanaa ninka la soo eedeeyey hadalkiisa ma dhegaystaan ee oohinta iyo qaylada gabadha ayaa la xukmiyaa sidaasna xuseen dhegay hadalkiisa lama dhegaysan jirin oo beenlow gabdhaha kufsadaa ayaa tahay baa la oran jiray dhanka kale ninkii samiir ahaa ee ay jeclay simran dhowaanna ku aqalgalay amase ku aroosay miyiga ayaa loo sheegay in gaarigii gabadha ay ku dareen uu dhex ku lunshay arrintaasna walwal badan ayuu ka qaaday waxa uu wacay lambarkii uu ku garanayay simran balse mar hore ayay kaarka iska beddeshay nasiib xumo nabar kalena reerkeeda kama hayo samiir waxay ku noqotay nabar ku taagan mana jirto cid kale ee u sheegaysa inantu inay gurigeedii tagtay maalmo badanna geelay la nooleed samiir way la noqon weyday asagoo gabadhii meel ku hubsan inuu hurdolado wuxuu naftiisa ku canaatay inuu yahay doqon aan qofba daryeeli karin gabadhii dhulka dheer u soo martay siday arooskiisa uga qayb gasho asxaab iyo ardana isla ahaayeen inaan magaalada ku hubsan waayo waa dameer xumadayda ayuu isku ciilkaambiyey hala yaabin marka aan ku leeyahay gabadha dhulka dheer u soo martay sida ay arooskiisa kaga qayb gasho asxaab iyo ardana isla ahaayeen waayo samiir in uusan waxba ka ogayn simran inay jacaylkiisa dartiisa u timid wejigii koobaad ee sheekada qaybteeda saddexaad ayaan idinkugu soo sheegay haddii aan idin xasuusiyana intiina aan dhegaysan ama hilmaantay dib u xasuuso waxaan idhi afarta jaho ee reerka waxaa ka shidan debkaas oo laba ujeeddo leh mar waa waraabuhu inuusan xoolaha u soo gaatabin marka kalena hamiinkaasi waxaa jiray arooskii samiir oo arooska ayaa loo ducaynayey simran waxay soo dhex martay rag fara badan oo hilib cunow ku mashquulsan waxay u gudubtay dhanka aqalka si ay dumarka wax u weydiiso markii ay hablaha dul timid waxaa isla markiiba aqootay samiir hooyadiis oo fadhiga uga kacday yaab farxad iyo malaysan waa isku dartay alla simran ahaa hooyo soo fadhiiso waa hamiin farxadeed waa arooska samiir iyo ereyo kale ayay isku dartay simran hadal aan ahayn aroos kadibna miir dabool ayay gashay war inanta bahal miyaa goostay tooshka keena waa hadalladii ugu dambeeyey ee ay maqasho simran samiir ayaa isna soo dul istaagay simran oo dhulka taalla alla simran ahaa maxaa meeshaani keenay iyo ereyo kale ayuu yidhi asagoo yaaban arooskiina waxa uu isku beddelay meel qaylo iyo sawaxan ka jiro dadaal badan kadib simran way soo naaxday marka ay soo miirsatay ayaa la weydiiyey sababta ay halkaan u timid iyo waxa ay la suuxday waxay niyadda iska dhahday intaad farxaddaada raadinayso tan samiir ha burburinin wayna qarisay dhammaan sababihii baadiye ay u timid waxayna ku daaweysay amase ku qancisay dhammaan dadkii in ay maqashay arooska samiir maadaama ay isku jaamacad ahaayeen haddana saaxiibo isku dhow ahaayeen inay arooskiisa ka baaqan weyday dahab qoorteeda ku jiray ayay soo siibtay kuna tidhi gabadha aroosadda ayaan ugu tala galay sidoo kalena waxa aan la suuxay waxay ahayd farxad darteed oo caawa arooska uma malaynayn iyo baqdintii aan ka qabay intaa soo socday waraabaha inuu cuno markii aan dadka iyo cidda arkayna waan suuxay dhammaan dadkii way ku farxeen siday gabadhan yar intaas oo dhula u soo martay wiilka ay wax isla baran jireen arooskiisa dartiis sidaas ayaa alalaaskii iyo ducadii lagu sii waday samiirna si farxad leh ayuu hamiinkaasi ku aqalgalay
simran hamiinkii oo dhan waxay ciil iyo caloolyow la galgalataba subaxii ayay tidhi ceelka ha lay geeyo samiir hooyadiis ayaa tidhi maandhay maalmo nala joog xoolana waan ku siin doonaaye laakiin simran way ka biyo diiday oo ma doonayn ninka ay jeceshahay dartiisna dhul dheer u soo martay aroosna galay inay la sii joogto haddaba simran inanta noocaas ah ayay ahayd samiirna wiilka jacaylka simran wax ka ogayn ayuu ahaa intiina u baahan inay wax badan ka ogaato taariikhda simran iyo samiir wejiga koowaad ee sheekada oo ka koobnaa 3 qaybood dib ha u dhagaysato aan dib ugu noqonno wejigii labaad ee sheekada simran dhowr beri markii ay guriga ku nasatay dhaldhalaalkii iyo dhabankeedana soo noqday ayay dib ugu noqotay jaamacaddii ay dhigan jirtay ogowna waxaa kaga horreeya ardadii ay wax la baran jirtay oo ka war heshay in simran nin ay jeceshahay baadiye u raadisay laguna camiran doono intaas haynoo joogto wejigii labaad qaybtiisii labaad ee sheekada labadii xishoodku kala geeyey wejiga labaad qaybtiisa saddexaad ayaa noo ballana waa libaan axmed ciise oo sheekada qoray cabdinaasir axmed xasan xiir iyo oday la socodsiinayay nabadgelyo